لله كرسي ليلة majority leader ما قاميها أقلبية برلمانك وكرسي قصة ليسن دستورك ودنك كينيا قضبك بقول سديت إلهي وحفرسي إيسي إنا نقضنينك أوريي مركي دستورك اللي بدرين أو حفيزك كفريتي مرلبات أيو حسبي ليغا إبو دورشيدو كسو قوليستي 2017 دب يوسو عليي maantana kalsoni kale ayay siiyeen marka alxamdulillah dadka inta badan waa la bedelay adiga maxaad ku badbaaday kursiga horta waxa ilaahay baan ku helay kollaba hadana badbaadkan ilaahay baa iska leh kasoo kollabo kalsoonayo xisbigayga golaha baarlamaanka oo maanta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay joogeen dib ay hadana kalsooni siiyeen marka waxaan dhiilaa kollaba alxamdulillah shaqadii aan qabtay xisbigiisaan baarlamaanka u hogaamiyey arrimihii dowladda oo aan sidii la rabay uga soo baxay anigoo weliba kalsooni ka haysto baarlamaanka qaybta jubilee ma ogiye qaybta hataa mucaaradka mar labaada isbedel la sameeyey labadii goorbo kalsooni ayay ii muujiyeen marka waan usoo shaqaynay xisbigiina markaan eegno waxa u muuqataa inuu u kala qaybsamay laba garab marka ma la dhihi karaa garabka madaxweynaha u wareegtay wallahi hadda waxaan leenahay xisbi talada hayo oo uu hogaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta hadda muhiimadana waxa weeye inaan ballanqaadkii aan u sameynay oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu sameeyay shacabka Kenyaanka kuwiina doorteen iyo kuwiina dooranin inaan ballanqaadka aan fulino waqtiga doorashada ay la gaarana xisbiga anaga qof muso magacaabi doona waqtiga markii la gaarana aan aan siyaasi yaan dhisi doona waqtiga ma shay kale hadda laakiin waxaan u shaqaynayaa madaxweynaha dawladda madaxweyne ku-xigeenka oo dawladda ku jiro iyo xisbiga jubileega gudaha baarlamaanka Kenya Adan Bare tan maanta waad ka badbaaday maxaa xaqiijinaya in wax kale aad ka badbaadi doontid wallahi waxaan ahay qof ilaahay aaminsan oo waliba adana aaminsan diinta islaamka wax kasta oo dhacana wuxuu ku dhacaa qadarka ilaahay waxaana wax badbaadiya ilaahay binaadam wax ma badbaadi marka midaasna waxay ku xiran tahay shaqadeyda iyo sidii aan ilaahay u aamino marka 7 sano ayuu ilaahay xilkan igu hayay waxaan aaminsanahay 2 sano soo hortay intuu baarlamaanka dhamaanayo 2 sano si daacad oo dastuurku qoraayo oo wadani anigoo cadaalad ku shaqaynayo anigoo wadankayga u shaqaynayo anigoo xisbigayga iyo madaxweynaha u shaqaynayo fiirinayo danta guud ee wadankana ayaan firay 2 sano soo hartay xisbiga Jubilee maxaa xal u ah halkuu dambeyn doona xisbiga anaga waa midaysan yahay maanta baarlamaanka wadaniga waa 200 iyo wax ku leenahay 16 maanta 206 baa joogay madaxweyne ku-xigeenka fadhiyay madaxweynaha fadhiyay secretary generalka xisbigaana fadhiyay waxaana ku tashanay inaan coronavirus-kan uu naga dhamaado inaan shir kale u imaano oo isbedelka wadanka ka socdo hadana aan ka heshiino marka maanta waji cusub ayaa xisbigaana u furmay oo guddoomiyaha madaxweynaha uu nala hadlay wuxuu yiri 3 asbuuc ka bacdi waan soo noqonaynaa wixii aan rabno isbedel xagga dastuuri ayaan ka tashanaynaa marka shalayna waad arkaysay maantana waad arkaysay xisbiga anaga xawaaweydii mugdiga ay suxufiyiinta soo qoraayeen waa arkaysa maanta way ka duwan tahay marka 206 xildhibaan 10 xildhibaan kida na maqnaayeen oo waliba tuulooyinka iyo degmooyinka laga soo doortay jireen